بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إله وحنو كابرينا عافمات، إله وحنو كابرينا إيمان، إله وحنو كابرينا قناعات، إله وحنو كابرينا ربك يو إن ددك الصوماليات قلبي قود إسوسو دنتيد مالك الصعدان أنا وقرن مايه وحن الحقيقة وحن حالي دقيستي وركسو يدي سعيد عبد الله الدني وحكهد لاي مناسبات سنة قوردي تي في وحينا شغاكو لهم بكهد لي وحيري برلمان كتشراه maanta ee labada gole ma metelaan mana jaangoyn karaan masiirka ummadda. xagguu xukumaa? maceergaabuu xukumaa? malascaanood buu xukumaa? geed gubtaa way hoos taallaa isagii baa baaxaadegaya. ma wuxuu xukumaa baydhaba? ma wuxuu xukumaa galmudug? ma wuxuu xukumaa soomaaliya? ma madaxweynihii soomaaliya? waa su'aale. ereygan la yidhaahdo puntland waanu ka soo korka wareegnay. cabdiweli baa yidhi haddii xogayaha guud ee jimciyadda quruumaha ka dhaxaysaa yimaado aqbali maayo 4.5 beenaalay noqotay. waa nafsi dariiqa, waa waddadii cabdiweli. puntland goormay puntland ka qiimo badnaatay 17 gobol? goormaase iyada yaa u dirsaday inay masiirka soomaali oo dhan dusha iska saarto iyadoo teedii la ciirciiraysa? wuxuu yidhi maxamed cabdilaahi farmaajo god buu ku ridayaa soomaaliya oo dagaal sokeeyu u horseedaya. siyaasiyiintaasaa qaba. uu ka mid yahay siciid deni, uu ka mid yahay cabdiweli, uu ka mid yahay faroole, uu ka mid yahay juxe, uu ka mid yahay way qabaan in dagaal dhaco oo dib laysugu yimaado oo la yidhaahdo muqdisho ma aha caasimad lagu shaqayn karo. meeshay ka gashay wuu hayaa oo hadday soomaali ka yeesho dhulba hantaan sii joogayn garoowe. kuwii wax isku darsaday baan sii joogayn, adna waxaad u doolaala tagtay muqdisho. caqli ma lihid, cid kuu ducaysana ma lihid, cid kula talisana ma lihid. wuxuu yidhi waan soo dhowaynayaa xasan cali khayre saamilayda uu ku dhawaaqay. 7 goor baan ku ceshaday. haddaan deen la gooyn oo isaga loo tuurin meel uu saamilay ku sheegay ra'iisul wasaaruhu anigu ma hayo. waa been buu ka sheegay. ninka kelmaddaa been ka sheegay maxaynu ka dhegaysanaa? war bal sheega waxaynu ka dhegaysanaa. alxaqiiqa waa nin baaxaad degaya. bal ninka tukaraq loo soo fadhiyo, weliba tukaraq waa laga soo durkay, yoocadaa la imanayaa. yoocada qoriga zuugahay garoowe waa gaadha. ninkaa hanjabaya, ninkaa xamar u hanjabaya ee baarlamaankii legitimiska ahaa u hanjabaya ee cabdiweli soo xulay
ee isagu kii ka horreeyey uu ka mid ahaaye la soo xulay ee uu kii dhowayto ee ay gabadhu soo gashay siciid warmajaalle galay uu kula dagaalamay boqorka waxaan rabaa xildhibaane iga dhig ee la yidhi waad qaadatay teeramkaagii buu wuxuu leeyahay sharciyad kuma fadhiyaan war ninkan ha la qabto oo ha la xidhxidho oo hadduu tol leeyahay ha la xidhxidho dagaalka isaga iyo boqor burhaan muxuu ka dhacay iigu celi buu yidhi markaasuu yidhi anigu sidii cismaan maxamuud wax loogu qaybin jiray markaagii waad qaadatay cabdiweli cali gaas oo diidan siciid warmajaalle ayaa wuxuu yidhi beeshaasi ha keento gabadh baa ku waajibtay ina siciid warmajaalle saasay xildhibaan ku noqotay warba waxa uu siciid inagula hadlayo caalamka kula hadlayo dhegaysta hadda isagaa rabay kii ka horreeyena isagaa ku yimi kii ka dambeeyena waa kii cabdiweli dhaaranayey waxa uu maanta sheegayaan waxba kama jiraan cid aad matashaa ma leh waa reero qodobkaana intasaa ku dhafaya dawladdan maanta jirtaa waxay kaga duwan tahay dawladihii hore albaabka isugu dhifan jireen baarlamaanku awoodday ka qaadi jireen dabadeedna waxaa la odhan jiray nimanka maamul goboleedyada ay ha yimaadeen dabadeedna iyagaa jaagoyn jiray laga ilbix dalku dawlad buu leeyahay laba aqal buu leeyahay prime minister executive power buu leeyahay madaxweynuu leeyahay cid wax kaa weydiinaysaa ma leh haddaad masiibo horseeday oo aad tiri dagaal sokeeyaa dhacaya oo yaa kaaga liita marna soo dhaafi maysid cidda aad tahay meel kasta uga wareeg reerka aad tahay baad ahaanaysaa wax ku qaadanaysaa 12 baarlamaan ku leedahay aqalka sanaadba hadda waagi dhaweeto aad boobteen waa laga daba tegayaa war waxa aad doonaysaa baa ummaddu doonayaan alxaqiiqa waxaan ku soo gebagabeynayaa nintaad qaaday xunbo cuskay meeluu u kacaa buu la'yahay ra'iisul wasaaruu raadinayaa meel uu ka jiro ma yaqaan yuu ka raadinayaa xasan sheekh maxamuud buu ka raadinayaa yuu ka raadinayaa iyo qayrkiis kollayba sheekh shariif ka raadin maayo waayo waan ogahay waxa uu ka qabo alxaqiiqa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.